xaaladda dalka hadda uu ku sugan yahay insha Allah way sahlanaanaysaa wax kastoo adagna fudayda ku dhamaadaan soo maaha insha Allah niyadiina khayr u sheega waa fududaanayaan horaa loo soconayaa cid istaagaysa ma lahan waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka walaalaha horteeda fadhiya inuu cadeeyo kursiga mas'uuliyadda idinka loo dhiibto shacabka loo dhiibto shacabka u qadmeynaa shacabka cid ka sarreysa ma lahan cid kursiga ku dhalatay oo ku dhimanayso ma jirto idinka idin shaqeynaa qof kastoo siyaasi ah oo mustaqbal kale dalkan waxaan u sheegayaa inuu u hoggaansamo baahida shacabka ayaan u shaqeynaa cid shacabka awoodeeda si qaldan ugu tagrifali kartana ma jirto horaa loo soconayaa shacabkana way tashteen wayna tashan doonaan shacabkana waa xor intaasina la socotaana rabaa insha Allah wixii soo taagnaa way dhamaanayaan horaa loo soconayaa hadda hawsha iigu horeyso aan qabanayo oo aan u diyaar garoobayo waa arrinta doorashada Somaliland oo igu horeyso aqalka sare soo diyaar garooba hadday daahdo idinkaa daahiyey hadday soo dhaqsato idinkaa soo dedejiyey idinkaa idin sugayaa idinkaa idinku xiranahay la imaada jadwalkiina وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته